hay'adda duulista Soomaaliyeed oo u dabaaldegaysa munaasabadda bixinta shahaadada loo yaqaan Air Operating Certificate oo la siiyo diyaaradaha duulimaadka waddan kasta uu leeyahay oo maanta la siinayo la guddoonsiinayo diyaarad ka mid ah diyaaradaha magaca Soomaaliya ku register garaysan run ahaantii waa maalin aad u weyn waxaan islaahay maalimaha xorriyadda Soomaaliya qayb weyn ka qaadanaysa ay la mid tahay ayay ka mid tahay sida hore loo sheegay oo la socotaan muddo 30 sano ku dhow ayay Soomaaliya aysan hawadeeda iyadoo ay xukumin ay dad kale u xukumeen ama hay'adaha caalamiga ah ay xukumeen oo gacanta ku hayeen wadamo kalena laga maamulayay taas macnaheedu waxay tahay sovereignty iyo xornimadii waddankaas uu leeyahay waxba ka dhiman markuusan asagu hawadiisa uusan maamulan karin xuduudihiisa uusan maamulan karin sovereignty-giisa weli inuusan dhammaystirnayn marka dadaal dheer oo dowladda Soomaaliya bixisay run ahaantii waxaa guul aad loogu faani karaa in la soo wareejiyay sanadkii 2019 inay Soomaaliya si buuxda ay ula soo wareegtay waxyaabaha khuseeya hawadeeda in ayadu maamusho aan meel kale laga xukumin taasna waxay ka mid ahay qayb ka mid ah dibudhiskii iyo gleelidii dowladda Soomaaliya qayb weyn ayay ka qaaday iyo ku lahayd marka hadda waxay ku galay markii waa la soo wareejiyay hadda maanta xafladaan u joogno diyaarado ilaa 3 diyaarado ama ilaa hadda inay qaateen taargada loo yaqaan 60 ama 6 Oscar oo waddan kasta uu leeyahay calaamad ama taargo uu leeyahay diyaaradaha qaatay oo laga register garay maanta marka xafladaan u taagan aan u joogno waxay tahay in la siiyo certificate ugu horeeyay shirkadda Freedom online runtii aad iyo aad markii ugu horeysana waxay ahayd dadka ugu horeeyay taargada ka qaatay haddana inaan ugu hambalyeeyno aan ugu mahad celinno inay yihiin shirkadda ugu horeysay oo diyaaradooda ay qaadanayso ay ku duulayso shahaadada ay leedahay Soomaaliya oo 6 Oscar maanta hawada adduunka markay marayso inaan la dhahaynin diyaaradaha markii hore aan maran haddii weliba kuwa dibadaha aada wadamo kale taargooda inay ku duulaan ama 5 Yankee ama kuwa ka mid ah meelo kale laga keenay laakiinse maanta inay ku duusho inaan gaarayna haddii la yidhaahdo 6 Oscar inay ku duusho waa guul weyn oo ummadda Soomaaliya u soo hoyatay guul weyn u soo hoyatay Soomaaliya guud ahaan iyo hay'adda duulista run ahaantii aad baan idinku hambalyeynaya shaqaalaha hay'adda duulista iyo sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinaynaa dowladda Soomaaliya oo iyadoo mar kasta garab ula taagan sidii loo hirgelin lahaa oo sida hay'adda duulista ay u noqon lahayd mid la jaan qaada hay'adaha asaageeda oo iyada la siman ama ay uga hormari lahayd runtii saan u sheegay oo u jeedna hadda annagoo hadda ku cusub inaan ka horeyno qaabka laysanka loo bixiyo ama loo bixiyo ogolaanshaha inaan ka horeyno oon ka casrisannahay waxaan rajaynaynaa waxyaabo kaloo fara badan inaan uga horeyn doono waxay ka mid tahay waxyaabaha loogu xiray inaan samayno aan u noqono hawadeenu ay u noqoto hawada kuwa ugu sarreeya Soomaali Civil Aviation uu noqdo hay'adaha ugu horeeya ugu sarreeya uu ka qayb noqdo waxyaabo fara badan ayaa la soo gaarsiiyey tababaro joogto ah oo la siinayo shaqaalaha si loo gaarsiiyo inay la jaan qaadi karaan habka casriga ah oo ay leeyihiin hay'adaha caalamiga ah ee duulistu qalabkii casriga ah oo loo baahnaa in asagana loo rakibo hadda ay magaalada Muqdisho iyo Boosaaso iyo Baydhabo rakibadooda ay ka socoto oo satellite link isku xiran in halkaas looga samayn doono waxaa haddana shaqaale ilaa iyo 10 shaqaalaha ayaa waxay noogu maqan yihiin tababar si ay u soo dhammaystaan tababarkaas marka hadda category-ga ama qaybta aan ka joogno category-ga lagu cabiro civil aviation-ka wadamada ay leeyihiin qayb hadda aan G ayaan ka joognaa markaan shaqaalahaas tababarka siino oo shaqaalahaas tababarka soo dhammaystaan waxaan rabnaa inaan grade aan gaarno meesha ugu horeyso ugu fiican inaan gaarno haddii la yiraahdo waan rajaynaynaa aan ku dala jirnaa sanadkan dhammaadkiisa sanadka soo socda inaan hawlahaas oo dhan inaan dhammaystirno haddii la yiraahdo marka waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto fursaddan maanta dhowr waxyaabood laba waxyaabood hadda wasiirkii xildhibaankii horreeya iisii taabtay midda ugu muhiimsan oo waxaan 6 bilood la soo dhaafay qorshahay ugu muhiimsan waxaa 3 qorshe oo waaweyn ayaan lahayn inaan ka fulino airportka midka ugu horeeya wuxuu ahaa in sidii loo heli lahaa diyaaraduhu meel lagu dayactiro ama hangar diyaaraduhu leeyahin in lagu dayactiro sidaan ogsoonahay waddankan kama dhisnayn oo ma lahayn airport leh hangar diyaaradaha lagu dayactiro diyaaradii la rabo in olyo laga bedelo ama taayirka laga bedelo waxay ahayd in waddamada deriska loo qaado marka waxaan ka shaqaynay oo ranay markii ugu horeysay in la helo horta at least hangar diyaaradaha lagu dayactiri karo marka ugu horeysay hay'ad shirkad ayaa nasiib u heshay tii ugu horeysay hadda dhisaysa dhismaheedina uu socdaa waan rajaynaynaa kuwa kalena haddii la yiraahdo haddii uu u baahdo baahidu ay timaadana in kuwa kalena laga hirgeliyo sida hadda Freedom ay u codsanayeen oo kale in ayadana haddii la yiraahdo in la hirgelin doono waxyaabaha kale oo muhiimkaana waxay ahayd oo qorshaha noogu jiray
hadda wasiir cabdullaahi wasiirka amnigu hawsha uu soo taabtay oo ahayd marka ugu horraysa waa baarkinka iyo waxaa isla socda maadaama uu airboortku yahay imagekii waddanka laga arkaayey oo meesha ugu horraysa laga soo degay in image fiican iyo weji qurux badan in laga sameeyo marka meesha laga soo galaayo albaabka laga soo galaayo hore inuu u ekaado airboort aad u qurux badan oo caalamiya oo weji wanaagsan uu dadku ka arko uusan u ekaanin marka la soo galaayo inaad gelaysid meelaha furimaha dagaalka oo kale inuusan u ekayn airboort caalami inaad gelaysid inuu u ekaado iyo sidaas oo kale baarkin ama meel baabuurta la dhigto oo dadka ama duulahaya ama shaqaaluhu ay baarkinka dhigtaan ama dadka airboortka u baahan labadiiba hadda waa naga dayacan yihiin oo sidii qorshihii waan ku jirnaa waan rajaynaynaa wasaaradda amniga iyo taliska booliiska soomaaliyeed iyo isla socda iyo annaguba inaan iska kaashan doono waxaa kaloo ayaguna lug ku leh dee dad airboort hadda keliya maaha meeshaan hay-ada caalamiya waaweyn iyo UN iyo waxbaa degan securitygiisa iyo hawshiisa ayakana inaan si wada siman aan uga wada shaqayno haddii ilaha yidhaahdo waxaan kale oo rabay inaan uga faa'iidaysto waxaa kaloo uu ahaa qorshaha saddexaad sidii loo soo celin lahaa Somali Airline in la soo celiyo waddanku wuxuu lahaa Somali Airline waxay ka mid tahay calaamadaha uu dalku leeyahay ayay ka mid tahay qayb ka mid ah inay maadaama hawadii Soomaaliya la soo celiyey diyaaradii Somali Airline in la soo celiyo qorshaheediina waa wadnaa haddii ilaa yidhahdo waan rajaynaynaa dowladduna inay naga caawin doonto oo qayb weyn ka qaadan doonto simbalkii ama flag carrierkii uu dalku lahaa calaamadii xorriyadaha calaamadaheeda ka mid ahayd inaan iyadana soo celinno waxaan kaloo rabaa halkaan inaan maanta uga faa'iidaysto arrin kale oo muhiim ah oo ay soo qaaday xildhibaan farxiye ayaa jirtay runta ayadaa ay sii tiri qorshaha way igu jirtay waxyaabaha waxaa jira annagu waddan baa nahay Soomaali baa nahay diyaaradahan dadka Soomaalida kulligood luqada ajnabiga kuma hadlaan mana akhriyaan luqada ajnabiga marka waxaan faraynaa aan u sheegaynaa diyaarad kasta oo rabta inay Soomaaliya ka shaqayso gudaheeda localka kuwa caalamiga oo u baahannahay khasab in lagu daro markay waddanka ka dhoofayaan way imaanayaan inay dadka ugu sheegaan waxyaabaha badqabka ah oo dadku ay u baahan yihiin luqada ay u fahmayaan in loogu sheego laakiinse waxaan rabnaa in diyaarad kasta oo civil aviationka Soomaaliya waxaan faraynaa iyo aeroboorradaba in diyaarad Soomaaliya gudaheeda ka shaqaynaysa oo aansan la socon qof Soomaali oo dadka Soomaali ugu sheega waxyaabaha looga baahan yahay oo badqabka oo safety-gooda khuseeya aan wadanin inaysan ka duuli karin sidoo kale inay leedahay calaamadaha iyo signiska waxyaabaha ku saabsan badqabka inay af Soomaali ku qoran yihiin hadda idin sheegay shalay waxaan soo raacay diyaarad gaalkacyan ka soo raacay Gurceel iyo meelahaas oo dhan bay soo maraysay dad Soomaaliyeed oo waaweyn baa la socda qof Soomaali lama socdo luqadda lagu hadlayo af Soomaali maaha wax ay ka fahmayaan male maxaa lagu yidhaahdaa the life is under your seat waxba ka fahmi maayo fasten your seat belt waxba ka garan maayo qof Soomaali af Soomaali saxa ku hadlayo waa inuu la socdaa diyaarad kasta oo duulaysa inaan loo ogolaan diyaarad aan qof Soomaali oo soo saarnayn inay ka dhex shaqayso waddanka gudihiisa ayaan ka rabnaa inay ka shaqeeyaan maxaa la yidhaahdaa hay'adda duulista hawada waxaan kaloo rabnaa annaga inaan wax nidaamino nidaam kale inaan raacnaan rabnaa maanta hadda urur waxaa ka jiray hadda la sheegayo xasan xaji waa joogaan OIC la yidhaahdaa jira OIC iyo hadda waxaa isku dhacaaya hadda waxaan bixinayno certificate bixin isku magac bay noqonayaan ma rabnaa inuu hadhow mushkilad ay ka timaado waxaan rabnaa inuu leeyahay Soomaaliya waan ogsoonnahay burbur badan baa la soo maray aad baan ugu mahad celinaynaa qolaha diyaaradaha run ahaantii waxay ahaayeen sectoriskii aan baabiin oo markasta shaqaynayay culayska waddanka iyo adduunka isku xiraan marka waxaan u baahannahay inaan samayno waana samaynaynaa haddii laha yidhaahdo urur ay ku midaysan yihiin dadka diyaaradaha ka shaqeeya oo diyaaradleyda ay ku midaysan yihiin oo ayaga danahooda ka shaqeeya oo iyagu ay leeyihiin oo danahooda si guud uga wada shaqeeya si aan maxaa la yidhahdo isbarbaryaac fara badan uusan u imaanin markaan gaarno oo weynaano diyaarado badan aan yeelano haddii laa yidhaahdo shirkado kale ayay la noqon karaan maxaa la yidhaahdaa partner la noqon karaan oo groups kala duwan baa jiri kara laakiinse intaan hadda ka shaqaynayno Somali Air Operator hal aan u baahannahay waa in la sameeyaa sida ugu dhaqsaha badan waa la samaynaynaa haddii laa yidhaahdo